السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدين سلام ولاalaha igu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan soo dhawaada channelkayga halkaad igala socotaan waa Fahiima Show soo dhawo ayaan ku leeyahay haddii aad channelkayga ku cusub tahay oo ay maanta kuugu horeyso fadlan subscribe noo taabo sidoo kale gambaleelka furo si aad u heshid muuqaalada dambe aan soo wado insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta Qadar iyo Fahiimo oo markii labaad social media soo gaartay sida caadiga ah ninka iyo naagta isqaba ama qoyska wada dhisan markasta ayay isdagaalaan wayna heshiiyaan ama haddii ay heshiin waayaan way kala tagaan ama quruxda badanna waxa ay tahay gabadha iyo wiilka marka ay khilaaf soo kala dhexgalaan in arrintooda aysan u bixinin banaanka oo labadooda arrintooda ay xalistaan haddii ay taas ay dhici weyso oo labadooda ay xalin waayaan in ay u bandhigaan familka gabadha iyo familka wiilka si labadaasi qofood ay isla noolaa arrintooda loo kala dhaxgalo haddii xal ay jirtana xal looga gaaro haddii xal laga heli waayana la kala tago oo furiinkaba mar ayuu bannaan yahay intaas kadib haddii ay soo dhaafto maxaa kale oo la sugayaa arrintii in social media la keeno waliba dad baraha bulshada magac ku leh aad iyo aad ayay runtii u xun tahay waayo markii horena waan ogeynay furitaankooda oo ay shaaciyeen wiilkaas iyo gabadhaas social media ayay timiday haddana waa markii labaad oo fiidiyoyo la isdhaafsaday hadday ahaan lahayd fiidiyo lagu sheegayo baraanki iyo fiidiyo sidoo kale Fahiimo oo ooyneysaan arkay inkastoo aad aan uga damqaday ooyinteeda waayo kornaageed kaba isma dheera marka waxa la yaab kale ama waxa xun oo aan fiicnayn waxa ay tahay in arrintoodii ay kasoo farabaxsatay labadoodii sidoo kale eheladoodiina ay xalin waayeen oo social media ay imaaday fiidiyoyada ay soo duubeen ayaan dhageystay waliba qaybta commentiga inaan aqriyo ayaan jaanis u helay waxaan arkay dad fara badan oo ra'yigooda ka dhiibanayo waxyaabaha ii muuqan waayay oo aan arki waayay waxay aheeday dadka ku xiran labadooda channel qayb kamid inay soo qorayaan keep going iyo hore u soco yacni qofku dhahaya ma arkaysid arrintiina ama arrimihiina bareefadka ah oo gudaha adinka idin ah banaanka u soo saarina qof dhahaya aad ayay u yareeday waayo dadka isku aqli maaha oo qof kasta waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay bal aa ogaatid arrinta gabadhan iyo wiilkan halka ay ku dambeysa la soco ama sii ogow markaas baad waxaad arkaysaa commentiyo aan qurux badnaynin keep going iyo hore u soco maxay ka micno tahay marka hore u soco fiidiyoyada soo badiyo oo arrimihiina banaanka soo dhiga baa loo qaadan karaa waayo ra'yigaaga marka ay ka dhiibatid wixii laga hadlaayo waxay noqon kartaa inaa adig ka hadasho sidii markaasi ay kula tahay marka aniga ahaanteeda ilama qurux badno ilamana wanaagsano markii laga soo tago gabadhan iyo wiilkan xitaa familada isqaba oo idil in arrimaha gudaha bareefadka u ah in ay banaanka soo dhigaan oo shacabka Soomaaliyeed ay la soo wadaagaan tan labaad fiidiyooga Fahiimo ay soo duubta ayaan dhageystay runtii aad iyo aad ayaan ula xumaaday sababtoo ah wax ay ayada dareemayso ayaan dareemayaa waayo waxaan isla nahay dumar sidoo kale Soomaalidu waxay dhahdaa kornaageed kaba isma dheero wixii ku dhacay walaashayda aad ayaan uga xumahay qaladka ugu badan maanta waxaan saareynaa wiilka sababtan waxa ay tahay fiidiyowga uu ku sheegay baraankeyga oo ay tiri Fahiimaha soo gelinin YouTube-ka ayuu ku qaldanay in uu YouTube-ka soo geliyo waayo labada qof waxa ay ku heshiiyaan waxa ay ka dhigan tahay ballan oo qofka ma wanaagsan qofka kale waxa ay ku heshiiyeen ama wax ay ku ballameen inuu mid ka baxo saas darteed Qadar waxa ay ka dhigan tahay in uu heshiiskii ka baxay fiidiyowgiina uu soo geliyay YouTube-ka sidaasina dadkii ay u qaateen in arrintan ay baraanka yihiin laakiin waad wada aragteen kadib walaashayna inay channelkeeda soo geliso video kale oo ay tiri wax baraanka la dhahayo ma jirto sida ay wax u dhaceen ay gabi ahaanba ay ka hadashay aniga waxa idin leeyahay haddii aad kala tagteen oo waqtigiina uu dhamaaday waa intaas oo wixii dhacay lama soo celin karo haddii aad doonaysaan inaad mar labaad noloshiinii aad si ambaqaadaana oo ay idin bannaan tahay inaad isku imaadaana waan soo dhaweyneynaa oo waxaan rajayneynaa qoys qurux badan family qurux badan inaad noqotaan haddii sheekada ay idlaatayna sheekadan ka socoto social media in aad halkan kusoo gabagabeysaan oo wixii hadda kadib idinla soo gudboonaada labadiina waa in aysan imaanin banaanka waayo waa ceeb laba qofood oo reer wada
dhisay wada noolaan jiray runtii fiidiyoyo qurux badan romantic ah jaceyl ah hadiyado laysku keenayo social media soo geli jirteen dadka waxay wada fiirsanayaan wixii hore a usoo geli jirteen iyo sidaa isku aheedeen maanta marka haddii la dhaho way kala tageen way isxumeeyeen fiidiyoyadii hore ayaa u muuqanaya oo waxay isleeyihiin wixii hore ayaa saxsan oo wiilkaas iyo gabadhaas waxay ahaayeen dad aada isugu wanaagsan inkastoo wanaagga uu dhammaan karo waxaa jira furiin ama kala tag sharaf leh iyo furiin runtii sharaf aan lahaynin oo labadooda markii aan kala qaadan ay u kala dhigan tahay gabadha markii la furo waxaad arkaysaa ninkii inuu soo wanaajinayo soo xiriirinayo haddii ay caruur u hayso kalena uu aada u xiriirinayo caruurtiisa uusan marna dayaceynin iyo sidoo kale furiin aan sharaf lahaynin oo ninka aa arkaysid marka uu gabadha furo inay usoo noqonayso gabar macaan badan oo waqti walba uu ka daba laalaado marka furiinka sidiisaba waa caadi oo haddii labada qofood ay is anfici waayaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu u ballaariyay adduunyada in ay ku kala daneystaan laakiin waa ceeb jiid aan ku jiideyna soomaalidu waxay dhahaan waa gacmo daalis sidaanoo kale arrimihiina markay bannaanka u imaadaanna qof kasta waxbuu iska dhaadhicinaya inkasta oo waxyaabaha aa soo duubteena la arki karo isku soo wada duubo aniga waxaan dhihi lahay fahiimo wixii kugu dhacay waxay ahaayeen wax xagga rabbi kaaga qornaay oo maanta lama dhihi karo waxa adig isku geysata waa iyo wuxuu ninka kuu geysta waa labadaba lama dhihi karo laakiin waxay noqon kartaa wax xagga rabbi kaaga qornaay sidaas darteed walaasheeda aad baa uga xumaha aniga ka ahaan aniga eedda oo dhan waxaan duudka ka saarayaa qadar sidoo kale fahiimana waxaan leeyahay haddii mar walba uu fiideo soo duubo qadar aadna kale soo duubto sheekada waxay noqonaysaa ha socoto oo wax damaaya ma noqonayso ninkaagii horena adiga ayaa taqaanid dabeecadiisa iyo sidii uu dhaqmi jiray wixii uu ahayba kolba waad ka hadasho oo fiideo ayaad kasoo diyaarisay haddii marka sheekadan aysan daminin waxay noqonaysaa intaan kadib ceeb in labadiinii midba midka kale uu usoo jawaabo oo fiideo loogu soo jawaabo wax qurux badan ma noqonayso marka isku daya labadiina inaa mid uu roonaado oo sheekadaani ay halkan ku danto waayo sheekada aad wadaan runtii ma ahan wax wanaagsan oo qof kasta oo xitaa ay qoysaska isqabo markii laga soo tago xataa singalka haddii uu dhageysto sheekadiina xataa ma noqonayso wax wanaagsan oo waxay usoo baxday banaanka oo intaasoo qofood oo kun ayaa daawanayso fiideogiinii aad soo duubteen marka sheekada si ay u danto walaalayaalow ayna u qurux badnaato iska joojiya waxyaabahan keenaya inaad labadiinii isku soo jawaabtaan sheekadiina qaabka ay ku socoto ma wanaagsano mana qurux badno waad mahadsantiin asxaabtii igu xiran maanta intaas ayaan rabay inaan ka hadlo oo ku saabsan gabadha walaasheena iyo wiilkaas muddadaas dheerna soo jiitamaysa oo social media hadda soo gaartay waa idin mahad celinaya asxaabey fiideoga laaga dhacdhac ku siiya markasta waad daawataan like laagta waad ka tagtaan sidoo kale asxaabta cusub soo dhawaada channelka subscribe saara muuqaalka sii share gareeya commentiga iga soo dhisa insha Allah dhiirigelin ayay ii tahay waana idin mahad celinaya mahad celintiina kama daalo sidaas iyo muuqaalka qurux badan intaan ku kulmayna waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh